Maxmed waa runta waxaa jiro course oo loogu talagalay in dadka Soomaalida ah uu ka caawiyo inay u diyaar garoobaan imtixaanka jinsiyadda dalka Canada. Inta aanan ku sheegin ka hor meesha laga helo, waxaan jeclaan lahaa in xoogaa background story aan maaragtay dadka la wadaago. Markii 2018 ayay ahayd markii aan rabay inaan u diyaar garoobo imtixaanka. Book ayaan soo qaatay. Bookii waxaan arkay in maaragtay macluumaad ku qoran ay aad u badan yihiin, luqadda ku qoranna ay tahay luqad xoogaa yara adag. Markaas ayaa waxaan isweydiiyey dadka luqadda ay ku yara adag tahay haddii maxaan ku iraahdaa ay rabaan inay u diyaar garoobaan imtixaanka, yacni caqabadaha ay la kulmi karaan ayaan isweydiiyey, gaar ahaan dadkeena Soomaalida. Markaas ayaan waxaan sameeyey research, waxaan galay Google-kan galay, YouTube-kan galay, meel kastaan ka eegay haddii ay jiraan casharo oo luqadda Soomaaliga iyo Englishka ah oo loogu talagalay dadka Soomaalida in lagu caawiyo. Laakiin nasiib darro ma aanan arkin. Markaas ayaa waxaa ku dhalatay fikrad ah in aan maxaan ku iraahdaa dadka caawiyo. Markaas ayaan bilaabay in aan dadka baro maxaan ku iraahdaa buugga, dadkaas oo maaragtay si face to face aan u bari jiray oo class soo fariisan jiray. Muddo kadib caqabado kale ayaa haddana soo baxay oo waxaa dhacday in COVID-19 uu waddanka ka bilowday. Dad badan ay awoodi kari waayeen in ay is arkaan ama yimaadaan. Markii dambena waaba la mamnuucay dadka inay isu yimaadaan. Taas ayaa haddana waxaa ka dhalatay fikrad ah in online lagu dhigto. Online-kii haddana caqabado kale ayaa ka dhashay oo waqtigii waxa laga yaabaa dadka qaar in uu munaasib u yahay, dadka qaarna aysan munaasib u ahayn. Intaas oo la isu keenay ayaa waxay igu dhalisay in aan sameeyo course online ah oo qofka iskiisa uu maaragtay uga baran karo casharada jinsiyadda. Taas oo ka caawinaysa in uu fahmo contentiga buugga waxa ku jiro, iyo sidoo kale in su'aalaha ku imaan kara imtixaanka uu ka jawaabo. Waxaan u sameeyey cutub kasta su'aalo ayaan u sameeyey. Qofka hadduu su'aalahaas ka jawaabo wuxuu u gudbi karaa cutubka labaad. Hadduu ka jawaabi kari waayana oo uu helo wax ka yar 80% waa in uu ku celiyaa mar kale su'aalaha. waxaa laga heli karaa طبعا website-ka cabdush.thinkific.com ama Facebook ayaan leeyahay oo sidoo kale asna Cabdush Productions la yiraahdo. Sidoo kale waxaan leeyahay YouTube channel oo asna Cabdush Productions la yiraahdo, iyo sidoo kale TikTok ayaan mararka qaar wax soo dhigaa, asna waa Cabdush Productions. Course-kan qofka haddii uu maaragtay subscription-ka yar uu bixiyo wuxuu haysan karaa muddo sanad ah ayuu active u ahaanayaa, oo videoyo ayuu leeyahay oo maaragtay qaab presentation u samaysan. Marka waxaan rajeynayaa in dadka Soomaalida ah ay baahidii ay u qabeen u diyaar garowga ay kaga bixi doonaan insha Allah. طبعا midda ku saabsan citizenship-ka ama jinsiyadda dalka Canada, طبعا shuruudo ayay leedahay. Shardiga ugu horeeya waxaa ka mid ah qofka qaadanaya jinsiyadda in uu yahay qof haysta deganaansho ama permanent residence wax loo yaqaano, uuna joogay dalka ugu yaraan 3 sano oo dalka uusan ka bixin. Haddii uu dalka ka baxana maalmihii uu ka maqnaa طبعا waa laga jarayaa. Tan kale waa in luqadiisa Englishka ama Faransiiska ay gaarsiisan tahay levelka laga rabo oo ah CLB4, Canadian level benchmark-kiga inuu yahay maxaan ku iraahdaa CLB4 ugu yaraan. Sidoo kale waxaa laga rabaa qofka inta uusan xareysanin citizenship ka hor, laga soo bilaabo maalinka waddanka yimid, inuu xareynayay taxiga, canshuurta. Sababtoo ah canshuurta qofka hadduusan xareynin waxaa laga yaabaa inay caqabad ku noqoto. Midda ugu dambeyso, qofku waa inuu yahay qof dambi aanan lahayn. Haddii dambi aad gashay waxaa laga yaabaa in caqabad ay ku noqoto sidii aad ku noqon lahayd muwaadin Canadian ah. midda ku saabsan u diyaar garowga, طبعا qofka si uu diyaar garoobo waa in uu maaragtay waqti geliyaa. Book ayaana jiro maaragtay dawladda ay soo saarto oo free ah, laga heli karo website-yada ama laga heli karo asoo hard copy ah meelaha public libraries-ka. Marka qofka halkaas ayuu ka akhrisanayaa, sidaas ayuu ku diyaar garoobi karaa.